sharaf weyn ayay ii tahay in aan idinkala soo qayb galo daahfurkan mashruucan weyn ee istiraatiijiga ah. Waxaa sida la sheegay laga furayaa ama laga hirgelinayaa magaalada Doolow ee gobolka Gadow. kulligiis waa kaabayaal dhaqaale, guryeyn iyo kobcinta garaadka ama karaanka bani aadamka. waa adeeg bulsho oo loogu talagalay in lagu gaaro isku filaansho nololeed oo kaamil ah. Doolow waxay hoy u tahay sida aad ogtihiin dad sida la sheegay aad u fara badan oo 140,000 ka badan muddo 30 sano ah iyo ka sii badan. dadkaas waxay xaq u leeyihiin in ay karaamo ku noolaadaan iyo inaan la faquuqin, inaan loogu yeerin magac gaara oo bulshada ay la degan yihiin ka takooraya sida barakacyaal in lagu tilmaamo. waa in loogu yeeraa magac la mida magaca bulshada ay la degan yihiin. waa dad Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh. waa inay heli karaan shaqo ay ku shaqaystaan, waa inay heli karaan waxbarasho, waa inay heli karaan caafimaad, waa inay dhaqdhaqaaqi karaan oo ay safri karaan, waa inay dhex geli karaan bulshada kale oo la abuuraa isdhexgal ayaga iyo bulshada qaybteeda kale. waa in la abuuraa walaaltinimo iyo wada noolaansho dhab ah oo dhex marta ayaga iyo walaalahooda ay la degan yihiin. mashruucan wuxuu qayb ka noqonayaa sida la sheegay qorshaha isbeddelka qaranka ee NTB. sida aad ogtihiin waa la sheegay ilaa 170,000 meelahaas guri ayaa hadda laga dhisayaa. haddii aad dadka Soomaali sida caadiga aad qoyskii 6 qof laga soo qaado, waa dad ka badan 10,000 oo Soomaali ah ayaa maxaan ku dhahaa meeshaas ku heli doonta hoy ay degaan iyo noloshii caadiga ahayd ee la socotay oo isugu jirtay noloshii kaamilka ahayd hadday tahay sida ay Zahra inoo sharaxaysay, inay waxbarasho helaan, shaqo helaan, inay caafimaad helaan, dhinac walba inay accesskaas ku helaan. marka waa bilow safar dheer oo aan rajeynayno in ay dad badan oo Soomaaliyeed uga baxaan noloshaas dhibka badan ee ciriiriga ah ee displacementka, dad aan deganayn ah inay uga baxaan haddii la yiraahdo. waxaa noo qorshaysan sida la sheegay dad 1 milyan oo Soomaali ah oo Soomaaliya oo dhan ka kooban in laga saaro noloshaas oo loo gudbiyo nolol caadi ah iyo xal waara. waxaan rajaynaynaa in marka la fuliyo mashruucan yoolka guud oo ah annaga dhinaca housingka marka la fiiriyo, marka lala akhriyo qorshaha qaranka ilaa 20,000 inay tani ka noqon doonto ugu yaraan adiga 10% haddii la yiraahdo. marka waa bilow wanaagsan oo aan ku socon doono haddii la yiraahdo. mashruucani wuxuu keenayaa xalal waara iyo jawaabo ayuu u helayaa dhibaatooyin haysata dad fara badan sidaan sheegay oo Soomaaliyeed. sidaan sheegay waa bilow, waa geedi dheer. waxaan rajaynaynaa in aynan xagga dambe kaga soo biirin intan aan xalino. laakiin haddii aan duruufihii keenay ay weli sii socdaan,
dee markaad in ka saartaba in kala soo geli taasna waa dhibkeeday leedahay marka waxaan rajaynayaa in ay inaga istaagaan duruufihii amni iyo kuwii dabiiciga ahaa ee ka imaanayay dhinaca isbeddelka cimilada abaaraha floodska iyo maxaan ku dhahaa daadadka cabsida colaadaha oo ama argagixisada mushkilada dadka kuwa soo barakiciyaano ama kuwa qabaa'ilka Soomaaliyeed dhexmara ha noqdaano waxyaabahaas inay inaga soo gabagaboobaan ayaan insha Allah rajaynaynaa si aan xal ugu helo inta faraha badan ee magaalo walba ee culayska ku ah ee kor saaran ee aad iyo aad kale oo la ildaran yahay waxaan rajaynayaa degmadaas Doolow oo lagu bilaabay inay pilot project noqoto oo dadkaasi aan dhahno waan intaas oo qoys oo hadda noo tilmaamay waan ka saarnay noloshii ayada ahayd ee barakacnimada iyo displacementka waan ka saarnay aanan aragno waqti dhow ayagoo u gudbay nolol caadi ah oo ka raystay tii hore markaan taas aragno insha Allah ayaan rajaynaynaa inaan kuwii kalena aan ku sii raacino ka xukuumad ahaan way naga go'an tahay in dadkeena aan ka badbaadino dhibaatadaas haysata muddada dheer ragaadisay runtii kumanaan ubad ah oo Soomaaliyeed ayaa maalin walba ama xilli walba halkaas ku ah ee ay ku haysataa waxbarasho la'aan iyo caafimaad la'aan iyo nolol aad iyo aad u hooseysa culays adag ay qaranka ku tahay khasaar ayay ku tahay waxaan marka xoog saaraynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan arintaas wax ka qabanno tanna waa bilowgii hay-adan runtii waan asaasnay markii aan 2022 imaanaynay xukuumaddan dalka waxaa ka jira aad iyo aad u ba'an iyo dhibaato aad u weyn manay jirin hay-adaha xataa gargaarku iyo maxaan ku dhahaa donorska xataa wax loogu talagalay oo baahidaasi ma jirin waad ogtihiin xaalad aad u adag baan soo marnay waxa noogu darnaa waxay ahayd marka nimid xaaladu ha jirto laakiin ciddii maarayn lahayd iyo hay-addii maarayn lahayd may jirin marka waxaa jiray confusion aad u fara badan oo maxaan ku dhahaa hay-adihii dowladda hay-adee lagu ogyahay waxaa aad runtii u daalanaa oo donorskii iyo hay-adihii gargaarka kulligood way wareersanaayeen jahawareer baa ku dhacsanaa cid ay la shaqeeyaan way laayeen marka waxaan xilligaas ilaahayna waafajiyey inaan hay-ad mar hore la sameeyey oo sharci leh oo baarlamaanka la mariyey oo hadda hay-addan Sodma aad aragteen inaan dib aan xilligaas u soo aasaasno oon dib ugu fakarno oo aan dhahno waa in Sodma la keenaa marka Sodma markay timid ayaa runtii ayaa jid noo baxay oo la fahmay cidda hawshaas iska leh coordinate garanaysa cidda ka shaqeynaysa waana lagu guuleystay xalka waarana asna wuxuu noqday arrin lagama maarmaan ay tahay inaan ka shaqeyno oo muhiim u ah qaranka xalka waara markaan raadinayna waxaan aragnay ayada oo division yara ama ku hoos jirta wasaaradda qorsheynta marka maadaama ay division yar tahay oysan agaasinahayn oysan dee waxay noqotay inay dee wasaaraddaasi qorsheyntu ay dadaalaysa laakiin tala soo jeedin iyo maahane sidii la rabay hawshaas inaynu qaban karin marka hay-addaas golaha wasiirada ayaa la soo mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ayaana soo habaysay qorshuhuna waxa weeye in 1 milyan Soomaali ah ay ka saarto
IDP camps oo ay nolol sustainable oo caadi ah oo normal ah inay dadka Soomaaliyeed geyso muddo kadib oo intaas laga soo shaqeynayay maanta waa Ilaahay mahadi in halkan aan joogno oo aan mashruuci ugu horeeyay fulin ah aynu hadda maanta aynu daafurayn marka guul weyn waaye waxaan u hambalyeynayaa degmada Doolow iyo dadka reer Doolow iyo dadka reer Jubbaland oo ayagu noqday nasiib u yeeshay inay noqdaan meeshii ugu horeysay mashruucan laga hirgelinayo waxaana keenay dabcan culayska haysta degmada Doolow oo dadkaas reer Doolow ay sharafta lihi ay martigeliyeen walaalahood martigelinayeenna wax ka badan 30 sano dad aad u fara badan oo aad u culays badan marka in maanta marka ayaga loo horkeeno ama loogu soo horeysiiyay fursad fiican ay u tahay waana ugu hambalyeynayna